madaxweynaha maamul goboleedka Khaatume State of Soomaaliya iyo odayaasha waxgaradka dhalinyarada iyo cuqaasha deegaanka Tukaraq ayaa wuxuu ka dhacay saaka 8 subaxnimo iskuulka weyn ee magaalada Tukaraq. Kulankan ay uga waramayeen cuqaasha deegaanku taageerada ay u hayaan maamulka Khaatume State of Soomaaliya ee dhawaan lagu dhisay magaalada Taleex ee gobolka Sool, halkaas oo ay ka hadleen mas'uuliyiinta ugu sarsareysa maamulka Khaatume State uu ka mid yahay madaxweynaha maamul goboleedka Khaatume State Axmed Cilmi Cismaan Axmed Karaash iyo qaar ka tirsan golaha wasiirada. Geesta kale waxaa iyaguna halkaasi ka hadlay qaar ka mid ah odayaasha deegaanka Tukaraq iyo haweenweynaha magaalada Tukaraq oo iyagu soo dhaweeyay wafdiga ballaaran oo hogaaminaya madaxweyne Axmed Cilmi Cismaan oo isagu dhawaanahanba socdaal ku mariyay deegaamada Khaatumo. Waxaa iyaguna halkaasi ka hadlay qaar ka mid ah golaha wasiirada oo ka mid yahay Cismaan Axmed Sheekh. Dhanka kale isna waxaa halkaasi wasiir ku-xigeenka arrimaha bulshada Cabdifataax Dhalaco waxaan idin leenahay intaa kasii kordhiye si gaara weliba si gaara waxaan halka uga mahadcelinayaa guud ahaanba haweenka deegaanada Khaatumo ee la baxay buuta koowaad, kuwaasoo ah galasiyaasha ama halyeeyada sida gaarka ah mar kasta u garab taagan maamul goboleedka Khaatumo. waxaan maamulkeenu taageersan yahay jiritaanka qarannimada iyo midnimada Soomaaliya. waa state ka mid ah stateyada ay ka kooban tahay dowladda federaalka ee Soomaaliya. sidaa daraaddeed taasoo hore ay 1960 ayay qaadatay Soomaalidu midnimadeedii iyo qarannimadeedii. waxaan u malaynayaa waxaa jira rag weli hadahaya xilligii gumaysiga kuwaas oo sheeganaya inay doonayaan wax laga soo gudbay dastuuriyan oo dastuurkii Soomaaliyeed ee 1960 laga soo gudbay inay maanta ku sheegtaan waxa aanu leenahay xuduud. waa been, wax ka jiraan ma jiraan, mana jira xuduudkaasi waxa uu baaba'ay 1960 markii ay Soomaaliya midowday ee ay samatay dastuur iyadu leedahay iyo dowlad. waxaan filayay oo ilaahay garteen baa jira waxaan aaminsanahay inay Tukaraq dhashay Khaatumo halkan ka bilaabay. anigoo keenayn baan Tukaraq joogay reer Tukaraq baan iga shaqayn jiray way soo gaarsiiyey halkaa. waxaan ii sheegayaa waxaynu halka kan ku jiraa halgan baynu ku jiraa reera inala mid ah ayaa oo aynu isnaqaano ayaa maxay ahaytay dhulkeennii haysta. way riyoodeen, been bay isu sheegeen. waxaynu u sheegaynaa inay si degdega uga baxaan inay uga baxaan u dhaaranahay waynu isgaranayna. halkaa markaan ka gudbo waxaan idinku bushaareynayaa muddo yar oo aan badnayn baan waxaan rajaynaynaa inaynu ascaano baynu khudbadda ka xiga aynu ku wada hadalno. waxaan wuxuu arkay in laysku mashquulinayay. waxaan maqlayay waan doonayaa inaan ii caddeeyo waxay kastamkan waxa qabsaday maxay tahay Khaatumo. kastamkani wuxuu ka mid yahay Tukaraq ku yaala. Tukaraq waxay ka mid tahay dhulka Khaatumo. dhulka Khaatumo waxaa ka talinaysa Khaatumo. Khaatumo garowe lama doonayaan. maamulka iyo shacabku waa kala duwan yihiin. shacabku waa dad walaalaa, waa walaalaheen, waa ay caawiyaan, waa ka xuyuuhiin haysashada maxay tahay cadowguna haysto. waa gabdhahooda iyo raggooda markaa wataan weydaro habeenay marahaanay fadhiisanayn. isku mid baan nahay. maamulku waa ka duwan yahay.
S24 TV magaalada Tukaraq ee gobolka Sool.